inan dhalinyara oo si wanaagsan aabaheed iyo hooyadeed soo barbaariyeen ayaa waxaa iskuulkii quraankii bay xifdiday waa lagu dadaalay dugsi hoose iyo dhexe iyo sareba way ka baxday ilaa intaa telefoon iyo moobil midna may qaadanayn fasaladana xagga hore ka gali jirtay waxay ardayd xariifada markii ay soo gaadhay marxaladii jaamacadda ama ay iskuulkii ka takharujtay inan weyn bay isu dhigto aabaheed oo aad u ixtiraamayo inanta aad u jecel ayaa ku yiri aabbo adigan de jaamacaddii galay maxaad doonaysaa waxay ku tiri aabbo moobilka ballaaran ee faraha lagu walaaqo kaasaan rabaa ka wuu soo iibiyey burkaba bahalka muu filan qisadaasi Hargeysay ka dhacday markuu soo iibiyey nabadii caana waxaan ahaynba waa la kala qaadaaye mid kale oo aafaysan ayaa iyadu markiiba arrimo aanay haabka iyo hiyigaba ku haynin tustay oo tiri de waxa la soo furtaa internetkii oo halkana la galaa oo waa sidan oo waxa la samaystaa account noocana oo waxa la samaystaa fasaad book annagu waxaan u naqaanaa fasaad book idinku wax kala u taqaanaan Soomaa way ayaa la samaystaa wixiiba way wada furtay markiiba mid kale ay garanaysay isku xidhay inankiiba marba risaaladu soo dira marba wuxuu soo dira aakhirataanki waxa gaadhay inuu qalbigeedii meel ku yeesho Imrul Qays ninkii loo oran jiray shaacirka ahaa ayaa wuxuu yiri atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkanahu marka hal inantii ninkii isagoo ala al-hawa ayuu qalbiga meel kaga yeeshay waxay gaadhay inuu ku yiraahdo soo dir suuradahaaga iyo sawiradaada marba mid bay u dirtaa waxay aakhirkii gaadhay in ay uu ku yiraahdo sawir xijaaban oo asturantay markii dambe wuxuu ku yiri waxaan ku weydiiyay horta aduu sawiradan aad ilaa hadda la isma araga garo horta adigu sawiradan aad soo dirtaa inanta dhowr sanaan waxay ka qabto 20 sanadood ama dhowr iyo 10 sano weyn baa lagu soo dadaalayay heer jaamacadeed bay soo gaadhay quraankii bay xifdisanayd horta waxaan ku weydiiyay adigu sawir adeeyada u egtahay un baad noo soo dirtaa maxaad sawir muxuu rabaa muxuu ka jeedaa sawir deetimo qaawin oo de magarasa kuwaynu garanayno inantii markii dambe wuxuu sameeyay sawiradii buu ururiyay wuxuu sameeyay marka waxaan la yiraahdaa photoshopka ee la isku hagaajiyo iyadoo qaawin buu ka sameeyay iyadoo sana buu ka sameeyay waa kan wuxuu ku yiri waxaan doonayaa intimidation ama caga juglayn waxaan doonayo hadii aad sameyn weydo sawiradaadaas aan baahinay inantii waxay istiri ceebtaada oo koo og yahay kullooma sheegay yiraahdaa waxay istiri isagoo ku ekaado way u baxday oo way aragtay oo wuxuu ku sameeyay buu ku sameeyay waraabe dhargay baa walaalkii xasuustay waraabuhu wishir baa la yiraahdaa markuu neefelo uu isu qayshadaa uu yiraahdaa uu isu soo ururaa markuu inantii wuxuu doono ku sameeyay ayuu ku casuumay kuraydii xaafadaha iyo asxaabtiisa inantii way xijin kari weyday problemkii iyo mashaakilkii ilaa cidna uma sheegi kartee balaayadanna ma garanaysee dabadeedna way waalatay way ku dhufatay markay inantii xanuunsatay ee maskaxda xanuunkaasi kaga dhacay ka bacdina way sheekaysay wax walba way ka sheekaysay ninkii baa ka sheekaysay wax walba ninkii baa ogaaday in reerkii raadinayo xabad la doondoonayo dabadeedna uu baxsaday tahriib uu ku dhuftay isagana ilaahay baa qisaasay oo dooni baa kula degtay badweynta Hindiya iyo maxaa la yiraahdaa Liibiya Atlantic Oceanka ee u dhaxaysa Mediterranean Sea ayay ku kula degtay oo halkaas uu ilaahay ku qisaasay waxay iigu wardambeysay inantii oo xanuunsanaysa oo cilaajyada ku xidhan aafama yahay moobil mise maaha ajala ma goyn karaa mise ma goyn karo mindi laba af lama yahay oo ku gowracaysa
idinkaa jawaabahaan idiin dhaafayaa iyo ummadda kale faraha badan